kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka maanka midiya qodobada aan kugu haynana waxa ugu waaweyn madaxweyne xaaf oo ciidamada ammaanka ku amray inay soo xiraan guddiga doorashada dawlad goboleedka galmudug al-shabaab oo mar kale weerar ka fulisay gudaha dalka Kenya Mareykanka oo ku fashilmay inuu dilo mar kale mas'uul ka tirsan dawladda dalka Iiraan dawladda Soomaaliya oo laga saaray liiska codaynta golaha guud ee qaramada midoobay baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo qaadacay sharciga doorashada oo ay meel mariyeen golaha shacabka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan maanka media mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2020 fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh ka bacdina riix gambaleelka si aad u hesho xogaha aan halkan ku soo gudbino aynu ku bilownaa madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hadda fadhigiisu yahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka hor yimid liiska xildhibaanada cusub ee shalay looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug qoraalka uu soo saaray madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu ku sheegay inuu cambaareynayo sidoo kalena ay la xisaabtami doonaan cidda soo saartay liiska xildhibaanada looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb oo uu ku tilmaamay kuwa been abuur ah sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka gobolada Mudug iyo Galgaduud in ay u istaagaan badbaadinta dawlad goboleedka galmudug Xaaf ayaa intaasi ku daray in tallaabadani ay tusaale iyo tilmaan u tahay nooca doorasho oo ay rabto xukuumadda Soomaaliya inay qabato sanadada 2020-2021 warkan ayaa ku soo aadaya iyada uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed ee wali ka taagan dhismaha galmudug kaas oo haatan waji kale u yeelay madaxweyne Xaaf warqadda ka soo baxday madaxweyne Xaaf xafiiskiisa ayaa sida tan qorneed dawlad goboleedka galmudug waxay u taagan tahay midnimada dhismaha dawladnimo ee ku dhisan hanaanka federaalka sidaasi daraadeed anigoo tix raacaya dastuurka dawlad goboleedka galmudug iyo kan federaalka ah galmudug taladeeda iyo sharciyadeeda waxaa iska leh madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee ma ahan odayaal been abuur ah xukuumad dano qaas ah leh ee guracan wadato iyo dalay xildhibaano ah oo sida ay rabaan ugu tuntaan masiirka ummadda reer galmudug waxaa wax lala yaabo noqotay in xildhibaano ka soo jeeda galmudug oo muddo 3 sano ah mucaarad ahaa kana soo horjeeday fashilka iyo musuqmaasuqa xukuumadda federaalka in ay maanta u hambalyeeyaan boobka lagu sameeyay dawlad goboleedka galmudug wixii ka dhacay shalay magaalada Dhuusamareeb waxay tusaale iyo tilmaanba u tahay nooca doorasho oo ay rabto xukuumadda Soomaaliya in ay dalka ka dhacdo 2021 waxaan aad u cambaareynayaa isla markaana kala xisaabtami doonaa ciddii shalay soo saartay liiska xildhibaanada in la horgeeyo cadaaladda sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhammaan shacabka reer galmudug sida odayaasha dhaqanka culimada waxgaradka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta inay u istaagaan badbaadinta dawlad goboleedka galmudug dhinaca kale warar aan ka helayno deegaanada dawlad goboleedka galmudug ayaa ku waramaya in xala ilaa iyo maanta kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo ee maamulkaasi kulamada oo ah kuwa isdaba joog ah ayaa waxa looga hadlayaa dhismaha galmudug iyo sida loo wajahayo doorashada la filayo in ay ka dhacdo Dhuusamareeb guddiga farsamada ayaa dadaaladii ugu dambeeyay ka wada magaaladaasi si loo dhameystiro dhismaha maamulkaasi oo uu wali khilaaf ka taagan yahay shalay guddiga ayaa ku dhawaaqay inta badan liiska xildhibaanada cusub iyadoo wali looga fadhiyo soo xulista xildhibaanada haray oo gaaraya ilaa 6 mudane dhinaca kale madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa shirar kala duwan Gaalkacyo ka wada isagoo ku dhawaaqay shir looga hadlayo dhismaha iyo ayaha galmudug wararka ayaa sheegaya in irgooyin ay direen beelaha qaar ee galmudug ay ku si qulqulayaan Gaalkacyo kuwaas oo ka soo horjeestay xildhibaanada la shaaciyay shalay lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka wali ka taagan galmudug oo soo jiitamayay tan iyo markii la aasaasay maamulka galmudug wali galmudug waxaa ka jira caqabado kala duwan oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa isagu ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dawlad goboleedka galmudug loona baahan yahay in looga dambeeyo
arrinta ama talada dowlad goboleedka galmudug xilli uu awal heshiis horay ula galay dowladda federaalka Soomaaliya uuna ku wareejiyay taladiisii ahayd ama soo magacaabistii guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug. hase yeeshee warar kala duwan oo ka soo baxaya dhinacyada ishaya ayaa sheegaya in weli aysan muuqan waan labadooda ka dhaxaysa waa dowladda federaalka iyo Axmed Ducaale Geelle Xaafe. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa in aysan dhag jalaq u siinaynin hadalka ka soo yeeray madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxayna dowladda federaalka Soomaaliya weli iyadu ku adkaysanaysa in Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu wareejiyay xilkiisii dowladda federaalkana looga baahan yahay midnimada reer galmudug. halkaad weli naga daawanaysaan waa Maanka Media. xarakada al-shabaab ayaa mar kale weerar ka fulisay gudaha dalka Kenya. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ay mar kale xarakada al-shabaab ka fulisay gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. weerarka oo ahaa mid gaadmo ah ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ola oo hoos yimaada magaalada Mandera ee gobolkaasi sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka ah. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarka lala beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada booliiska Kenya iyo xarun shirkadda Safaricom ku leedahay halkaasi. macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan oo ka dhacay xalay saqdii dhexe gudaha dalka Kenya, balse wuxuu burbur xoogan soo gaarsiiyay labada goobood oo lala beegsaday qaraxaasi. weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Kenya iyo dhanka xarakada al-shabaab oo fulisay weerarkaasi. xaaladda ayaa maanta degan, balse ciidamada Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabay xadka dalka Soomaaliya. toddobaadyadii la soo dhaafay dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka fulinayaan Kenya, iyagoona beegsanayay saldhigyada ciidamada dalkaasi ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya. xarakada al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay la beegsadeen qaraxyo iyo sidoo kale weeraro kala duwan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dalka Kenya, waxaana ugu dambeeyay weerarkii xarakada al-shabaab ay Lamu kula beegsadeen saraakiil ka tirsan ama saldhig ciidamada dowladda dalka Kenya iyo dowladda dalka Mareykanka ay ku leeyihiin gobolkaasi. xarakada al-shabaab ayaa weerarkaasi sheegtay, waxa ayna sheegeen in khasaare weyn ay ku gaarsiiyeen dowladaha Mareykanka iyo Kenya. afhayeenka qaramada midoobay ayaa kaga dhawaaqay magaalada New York in Soomaaliya ay ka mid noqotay 7 dal oo ka mid ah qaramada midoobay oo qarka u saaran in ay waayaan xaqa codka golaha guud ee qaramada midoobay. afhayeenka ayaa sheegay in sababtu ay tahay bixin la'aanta dhaqaalaha xubinnimada oo ay la daaheen dalal ay ku jirto Soomaaliya. xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaya in xubintii muddo 2 sano ah bixin weyda dhaqaalaha aanay ka codayn doonin golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. dowladda dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka lagu dhawaaqay in ay qarka u saaran tahay inay lumiso codaynta qaramada midoobay, waxaana la siiyey digniin ku aadan in ay soo gudbiyaan caqabadaha haysta maadaama uu waqtigu ka dhacay. golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa inta badan waxa ay Soomaaliya ku eedeeyaan in ay bixin weysay lacagta gunnada ah ee laga rabo ee lagu bixiyo howlaha qaramada midoobay, waxayna dowladda dalka Soomaaliya iyo dalalka kale ee 7 ka midka ah ay sheegeen in loo baahan yahay in ay bixiyaan lacagta si ay uga sii codeeyaan golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 11 bisha 1 2020 waxay kalsoonidii caadiga ahaa ama kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho. ajandaha kulanka ayaa ah koodii sharciga doorashooyinka qaranka oo dhawaan xildhibaanada golaha shacabku ay meel mariyeen. xildhibaanada ayaa sidoo kale dood adag kala maalmihii la soo dhaafay sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa xalay lagu wargeliyay in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka isla markaana ay soo xaadiraan. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaarkood weli ka biyadiidsan yihiin sharciga ay meel mariyeen golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana inta badan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen in sharcigaasi uu yahay mid xadgudub ku ah qarannimada Soomaaliya. militariga dalka Mareykanka ayaa ku guuldareystay isku day ay ku dili lahaayeen generaal kale oo sare oo Iiraaniya oo ku sugnaa dalka Yemen isla maalinkii ay duqeyn ku dileen
jenaraal qaasim suleymaani oo ahaa taliyihii ugu awoodda badnaa ciidamada iiraan waxaana sidaasi qoray wargeyska New York Times. shacka qaadista howlgalkan labaad ayaa muujinaysa in maamulka Trump uu waday qorshe olole ballaaran ah oo markii hore aan la ogeyn kaasi oo looga dan lahaa in lagu wiiqo awoodda Iiraan ay u leedahay in ay qaado dagaal maldahan oo ay ka fuliso dalal kale. weerarka fashilmay ayaa ka dhacay Yemen ayaa la doonayay in lagu dilo Abdulrazzaq Shahlai oo ka tirsan ciidamada Qudus ee Iiraan ee uu hogaamin jiray jenaraal Suleymaani. 4 sargaal oo xogogaal u ahaa weerarka ayaa sheegay in Shahlai la beegsaday balse uu ka badbaaday duqeynta. Abdulrazzaq Shahlai ayaa la rumaysan yahay inuu yahay abaabulaha iyo maalgeliyaha maleeshiyooyinka Shiicada ah ee gobolka. madaxweyne Donald Trump ayaa ansixiyay weerarka ka dhanka ahaa Shahlai isla xilligii uu ansixiyay weerarkii lagu dilay jenaraal Suleymaani 3 Janaayo inkasta oo aysan cadayn in labada weerar ay dhaceen waqti isku mid ah. Shahlai iyo Suleymaani ayaa ahaa laba ka mid ah dhowr sargaal oo u dhashay Iiraan oo maamulka Trump uu ku beegsaday dagaal la doonayo in looga hortago weerarada ka dhanka ah goobaha Mareykanka iyo in Iiraan laga joojiyo gardarrada ay ka wada gobolka sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah. dowladda Mareykanka ayaa horay ugu yabahday $15 milyan oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaaraad ku saabsan Shahlai. Shahlai ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah xulafada Mareykanka iyo isku daygii fashilmay ee sanadkii 2011 lagu dili lahaa safiirka Sacuudiga ee Mareykanka. guud ahaan waxaa intaas ku eg warkii Manka Media. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh ka bacdina riix gambaleelka si aad u hesho xogta dahsoon ee halkan kugu soo gudbino. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabaday.